بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرضيدا macallimiinta iyo maamulka Banaadirson ugu horreyn waan u mahadcelinayaa waan salaamayaa marka labaad run ahaantii maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo run ahaantii maanta dhameeyay heerkii koowaad ee waxbarashada dhammaan ardayda macallimiinta iyo maamulka Banaadirson waan u mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa waliba aan leeyahay juhdigii iyo dadaalkiinii halkan ka sii wada ardayda dugsiga Banaadirson in badan wax soo baranaynay waxaan helnay macallimiinteeni ah mar waalidkeeni ah mar saaxiibkeeni ah sidoo kale waxaan helnay maamul run ahaantii mar walba na garab taagan raadinaya sida anaga aan horumar ku gaari lahayn run ahaantii haddii ay ahaan lahayd maadooyinka afrimaad oo TV oo aan baraatika aan u helnay haddii ahaan lahayd library buugta oo akhrista oo noola keenay run ahaantii Banaadirson maamulkiisa iyo maasdiisa marka waa mahadcelinayaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta ka qalin jabino iskuulka Banaadirson noona dhamaaday imtixaankii dugsiga ama imtixaankii dalada run ahaantii haatan waxaan sugaynaa imtixaankii guud ee ardayda Soomaaliyeed ay wada galayeen run ahaantii taasna waan rajaynaynaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa waalidkii in badan heerkan isoo gaarsiiyay juhdi iyo waliba dadaal fara badan igu soo waday waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ardaydii in badan aan saaxiibada wada ahayn aan wax soo baranayn waxaan leeyahay juhdigii iyo dadaalkii macallimiintiinii meel ha ugu dhicina sii wada run ahaantii maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka qalin jabiyo iskuulka Banaadirson waxaan sidoo kale aan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo naadiga qalin jabiyaasha ee dugsiga Banaadirson hadda waxaan ka qalin jabiyay dugsiga waxaan ka baxay gudihii dugsiga waxaan ku biirnay naadiga qalin jabiyaasha ee Banaadirson runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maanta dhamaaday imtixaankii iskuulka waxaan marka u mahadcelinayaa dugsiga Banaadirson oo leeyahay weligaa guuleyso jiro joog maamulka Banaadirson waxaan leeyahay guuleysta